labaatanka waxaan halkan xafiiska amniga qaranka waxaan isugu yeedhay saxaafaddii dalka ka howlgalaysay intii aan ka gaari karayay waxaan doonayaa inaan arrin yar ka hadlo arrintaas oo ah waxaad ogeydeen in dhowrkii casho ee lasoo dhaafay miidiyaha iyo baraha bulshada la isla dhex marayay sheekh la odhan jiray in wadaadahoo la odhan jiray sheekh aadan sunne iyo caa'iladiisii oo la waayey oo meel alla meelay ku eedan yihiin aan la garanayn waxaa kale oo arrintaasi ka dhashay ama ay dadka qaar ku sii kordhiyeen in xukuumadda uu afduuban yahay oo uu xidhan yahay waxaa kaloo qaar ku sii dareen waxyaabo kale oo iminka halkan miidiyaha inaanu ka sheegno aanu runtii ka xishoonayno ama aanu dadweynaha aanan waxaa dhegahooda maqashiinayn halkan waxaan u caddaynayaa dadweynaha sheekh aadan sunne cid alla cid kasta oo ka hadlaysa xafiiska amniga qaranka iyo laamaha ammaanka ogaalkay cid alla cid ay kala soo xidhiidheen ma jirto ciday wax ka weydiiyeenna ma jirto wasiirka arrimaha gudaha cid uma iman anigoo ah wasiir ku-xigeenkii amnigana cid ii timi oo iga waraysatay ma jirto sheekh aadan sunne wuu guuray isaga ayaa iskii u guuray cid alla cid qasabtay ama ammaankiisa khatar gelisay ama naftiisa iyo caa'iladiisa wax u dhintay ma jirto isagaa iskii u guuray caa'iladiisana raray wuu tegey somalilandna wuu ka baxay waxaanuu u guuray koonfurta soomaaliya sida aanu warka ku hayno sheekh aadan sunne annagu waxaanu aaminsannahay in uu u tegey saaxiibadii uu marka horeba lagu eedeyn jiray inuu afkooda ku hadlo sidaa awgeed hadda waxa socda baadhitaan ballaadhan baadhitaankaas oo aanu ku baadhayno halku maray iyo sida uu baxay iyo cidda ka caawisay ama gacanta ka siisay arrintaas baadhitaankaasna waxaanu soo saari doonaa haddii alla ka dhigo warbixin dhammaystiran oo ballaadhan ayaanu ka soo saari doonaa waxaanse hadda idin xaqiijinayaa ninkaasi inuu isagu somalilan iskii uga guuray caa'iladiisana iskii uga raray koonfurta soomaaliyana uu geeyey isaguna halkaa joogo cid somalilan gudaheeda ku xidhay ama wax ku yeeshayna haba yaraatee aanay jirin laamaha ammaanka lagu eedeynaya inay qafaasheenna aanay shaqo ku lahayn taasi waa halkaas waxaan ku darayaa habeen hore waxaa hadlay odayaal dhaqameeda iyo odayaal kaleba isugu jira oo qoyska ama reerka uu sheekh aadan sunne ka soo jeeda ah waxay sheegeen in sheekh aadan sunne iyo caa'iladiisii ay la-yihiin waxay sheegeen meel alle meelu ku eedanyay inaanay garanayn waxay sheegeen inay guddi u saareen guddidaasina inay guddi arrintaa ka daba tegaysa ay tahay xafiiska amniga qaranka oo ah xafiiskan aan fadhiyo cid alla cid la soo xidhiidhay ma jirto cid wax naga weydiisayna ma jirto marka arrintaas waxaan u arkay in ay tahay uun arrin ah ragga ka hadlay meesha ka hadlay ama meesha fadhiyey qaar ka midi waxay ahaayeen raggii sheekh aadan sunne oo xukuumadda u xidhan oo kiiskiisa gacanta lagu hayo iyagu ka damiintay ee xukuumadda ka sii daayey ee yidhi annagaa meel ku ogaanayna annagaa ka warhaynayna ee dhaqdhaqaaqiisa iyo wax kastoo uu qabanayo inaanu fal amni darraa ku kicin wax dambe oo dhibaato ku ah qaranka somalilandna aanu ku kicin hadda marka ay saa u hadlayaan waxaan u qaadanayaa inay tahay gardarro sababtoo ah iyagaa damiintay somalilandna ka furfuray jeelka ka sii daayey
iyadoo uu dawladda u xidhan yahay iyaga ayaa laga rabaa halku maray iyo siduu u tegey iyo waxay uga warhayn waayeen iyo waxay amniga qaranka u soo ogeysiin waayeen taana halka aan kaga baxo xisbiga wadani gaar ahaan xogayaha arrimaha gudaha wuxuu ka hadlay isaguna maalin dhaweyd ninka muwaadinka ahaa ee wadaadka ahaa ee Sheekh Aadan Sunno la yiraahdo iyo cayladiisa in la laayahay waxaad moodaa sida uu hadlayay inaynu joogno caalamkii qarniyaashii hore aanay dawladuhu ka jirin la isku qafaalan jiray sawir noocaas buu bixiyay waa xisbi qaran mar hadduu yahay waxay ahayd inuu wasaaradda arrimaha gudaha la soo xidhiidho oo inta aanu hadal uu war ka raadiyo nalama soo xidhiidhin nalama soo hadal wuu yaqaanaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu iska jeediyey statement waxaan u aragnaa inay tahay statement aad u khaldan waxaan u aragnaa inuu yahay anshax darro siyaasadeed waxaan u aragnaa inay tahay majara habaabin dadweynaha la majara habaabinayo sababta oo ah xisbiga wadani wuxuu kala garan waayey wasaaradda arrimaha gudaha oo amniga mucaaradka iyo amniga muxaafidka muwaadiniinta oo dhan mas'uul ka ah oo ilaalisa oo ay habeen walba ku seexdaan ayaa wuxuu kala garan waayey ma xisbigii kulmiye ay tartamayeen baa wasaaradda arrimaha guduhu mise waa wasaarad qaran wasaaraddani waa wasaarad qaran xisbi kasta mucaarad iyo muxaafid amnigiisa amnigooda waxa ilaaliya dawladda ilaalisa wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha amniga hoos yimaada baa ilaaliya wuxuu kala garan waayey markaa wasaaradda arrimaha guduhu inay xisbigii kulmiye tahay inay tahay wasaarad qaran arrintaana waxaan isleeyahay xisbiyada qaranku marka arrintan oo kala dhacdo waxa munaasib ah inay wasaaradda arrimaha gudaha la soo xidhiidhaan oo ay weydiiyaan information halkan baa informationka ku soo urura waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkan jaraa'id ayaamahan waxaa socotay aflagaado fara badan oo laamaha amniga loo geysanayo oo la leeyahay iyaga afduubay oo wax walba la sheegayo waana cambaarayn waa arrin xaqiiqada ka fog waxa weeyaan amniga qaranka waxa ka mas'uula wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha amniga hoos yimaada habeen walba iyo saacad kasta muwaadinku isagoo hurda isagoo iska shaqaysanaya isagoo oo hawlihiisa ku foogan ayay iyaguna waxay ku foogan yihiin amnigiisa iyo nabadgelyadiisa waxay ugu dulqaataan soo jeed iyo busharad iyo maxaan ku dhahdaa wax kasta way ugu dulqaataan inamada dhalinyarada ah afka dhaadheer ee baryahan dambe wax walba intay soo dhaafeen oo cid kasta soo dhaafeen soo gaadhay inay aflagaadeeyaan oo ay cambaareeyaan oo waxaanay qabin ay dhakada ka saaraan laamaha amniga ee amniga qaranka iyo ummadda ka shaqaynaya waxaan halka kan aan ka sheegayaa maanta in sharciga la horkeeni doono nin kasta oo afkiisu uu gaadho laamaha amniga si xaq darro ah waxaan jirinna sheega cambaarayn aanu caddayn karayn oo aan jirinna sheega waxa weeyaan sharciga waa loo wada siman yahay muwaadiniinta Somaliland waxaan u sheegayaa dalku waa nabad abaar uun baa jirta ilaahayna insha Allah waxaan ka baryaynaa inuu inaga saaro abaarta intaasaan ku soo gabagabeynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته